إمامك جبريل أبو بكر الصديق إخوانكم انتهى الشهادة ليس دماء إمامكم أحمد نور أدو كلمة ضلوا من محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد صلى الله عليه وسلم. الله أحمد سنكي ساي آمنا إجركت أبا يدن فاضل يدكتوي أدوجت إمامك جبريل أبو بكر الصديق إخوانكم انتهى الشهادة ليس دماء إمامكم أحمد نور أدو كلمة ضلوا من محمد يا رسول. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله أنت سبحانك إن كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا ليال لما أنت وأني السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت عفكي تقانية أنت عفكي قومبة waxaa jirtay wiil ka hor inaa cajali youtube-kayga qadra Somali Health idaan soo geliyay. waxaan rabaa maantay sidii aan hawsha aan u suubiyo aniga inagu yiri video-ga saa u suubiyo insha Allah waa u soo gelinayaa. walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala nibciina siiyay dhammaantiin meel kasta aad joogtaan inta afkayga fahmaysa inta fahmayna you can translate ama waa turjuman kartaa. waxaan inii sheegayaa waxyaalo badan oo waddankeena ka baxa oo anaga dhibaato badan oo dadkeena iska heysata meel kasta ay joogaan qofku uu isticmaali karo first aid ahaan ilaahayna aan ka rajaynayo inuu ilaahayba ku caafin karo. mid waa general rag iyo dumar, midna waxa waaye ragga. gabdhaha Soomaaliyeed badanaa waxay ka cawdaan kaliyaha layga hayaa, beerka layga hayaa, calool baa haysta, caloosha ay weyn, waxaasay ka cawdaan. haddaan usoo haro raggana waxaa jira qofka bini-aadanka stage waxaa jira qofku markuu dhalinyarada yahay wixii over 25 ka weyn qofku markuu gaaro waxyaalo badan baa la soo darisa hadduunan caafimaadkiisa exercise suubin, cunto healthy cunin, maskaxiyan una qofku maaragtay weel u ahayn qofku fakaro stress ugu furo. horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala walaalayaal waxaan rabaa inaan inii sheego wax kasta awoodda ilaahay bay ku xiran tahay. adduunkan koonkan ujeedaa ilaahay baa iskale. ilaahay dadka kala waxaa kugu filan qofka aragtida, qofka caqliga leh, maskaxda leh, ama ilaahay subxaanahu wa ta'ala kalowsla wuxuu firiyaa wuxuu abuuray siduu u abuuray xawayaanka, dadka, buuraha, badda, fikradaha maskaxda dadka ku kala degan. horta qofku waa inuu taas belief gareysay marka ugu horeysa. ilaahay subxaanahu wa ta'ala 5 qof oo walaalo ah buu qofna wuxuu siiyaa maskax fiican, qofna wuxuu siiyaa maskaxdiisaba inay si kale u fakarto. ma fahanteen walaalayaal? marka waxaan ilaahay horta anigu qadra foote Somali Health youtube-kayga xoolo kuma raadinayo, laakiin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed ama ummadda ama qof kasta oo human being inaan u faa'iideeyo waxyaalaha guryaheena keli karno ama aan cunno oo aan isticmaalno daily life-keena. markasta aan isticmaalno waxaan rabaa inaan iiga faa'iideeyo si aad u isticmaashaan dawo ahaan. haddaa haysatid caloosha habadka noqoto video-gayga horena waa ku jirtay. maasha Allah tabaaraka Allah. nin waxaa jira Marokana oo iisoo ducayso qor wuxuu igu yiri ilaahay khayr ha ku siiyo, inkastoo carabiga ma aqaan laakiin wax yar baan fahmaa. wuxuu yiri 30 sano kaadida ma cishan jirin, muddo hadda 6 bari waxaan isticmaalaya video-ga aan soo duubtay. video-ga soo duubtay wuxuu yiri kaadidayda inaan cishado oo musqushi badnaantii aan gali jirin aan wax yar galo sida normalka qofka ah baan maaragtay ii sheeg aan bilaabay. biyo dhaqaatiirtana meel kasta waa maray, waxay igu dhaheen biyo galaan qanjir baa laga hayaa, cudurka ka hayana ma garanayno. marka wuxuu yiri muddo 6 bari kaadidii badnayd waa yaraatay. marka waraysi buu ila galay. qofka bini-aadanka waxaa la rabaa horta awalan waxa markaa isticmaalaysid inaad rumaysan tahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala nibcadiisa waxay ku jirtaa kulli shay, wax kastoo asagu suubiyey. ogaadana this dunya ama adduunka ilaahay ma abuurin ilaa uu dawadiisii qofka cudurka haya uu keeno. awalan waa quraankeena wa shifaa wa dawa, waa quraankeena dawa. waxa ku xiga waxyaalaha recommending oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa ku mashmay, diinta ku mashmay oo mudaawaadka oo neutralka u baxa.
waxyaalahan kiimikaalka la isku daray daaminitan qofku markuu baahan yahay oo dhibaato adag hayso waxa laga yaabaa inay wixii markaas caawiyaan ilaa waa chemical very active shaqeey laakiin waxyaalaha neutralka ay takes time qofkan waxa loo baahan yahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala isku xiro beeshin yeesho waxa markaa isticmaalaysid waa inaad dawo ahaan u isticmaashid ma aha sheeka Soomaali laba bari intaan wax cuno ama wax qofka arko isku dardaray inaan dhaho waxaan waxba kama socdo waxa la rabaa awalan qalbigaaga inuu qofku subxaanahu wa tacaala uu horta rumaysan yahay oo ah calaamadaha hadda inii sheegay bini aadan kala duwan buuraha badda ilaahay samayskiisa baa wuxuu inoogu filay cibri qaadasho waxaa inii sheegayaa saddex qof ma liibaanaan qof xaasida qofka walaalkiisa ka fikir duwan xasta kan la dhashay iyo kan ilmihiisa iyo kan awlaadiisa iyo kan islaamka iyo qof kasta yimid horta xasta waxaa la rabaa meel ma gaaro adduunyo aakhiraba qofkaas meel xun buu ku dambeeyaa oo asaga dhibaatadaas xaasidnimada u geystay kaliya kuma koobnata isirkiisa farcankiisa damuu sii socdaa qofku markuu qof khayraysan daga yahay oo wanaaga ka shaqeeyo oo wax fiican ka shaqeeyo oo dadka wax fiican usoo bandhigo advice fiican siiyo qofku wax ka khaldan yihiin caawiyana waa liibaanaa oo khayr buu helaa oo awlaadiisa dambe baa ilaahay khayr siiyaa waxaa inii sheegayaa marka waxyaalo badan oo waxaa jira qofka bini'aadanka dunida nolosha ku nooshahay waa in qofku wax ka bartaa walaalayaalow horta maasha Allah tabaarakallah inta ii ducaysa waxaa ilaahay uga baryayaa jannada albaabadeeda ilaahay inuu u furo inta qalbigayga nicibna ilaahay inuu soo hadeeyo inta aniga fikradeeda iyo maskaxdayda waxaan keensado ama anigu maaragtay ii sheeg aan ku fikra ama cilmigayga aan bartayna igu colaadisana ilaahay wahuwa calaa kulli shayin qadiir baan u wakiishay laakiin anigu qalbigayga qof kastoo kii xastay iyo kaani xastan bi kulli shay marka عفس بيجي ولا لا مركو حنيشة عن كلا فائدة سنة أسكو فائدين وحنيشة يا قفك ولا الكينا مركو يني فائدة ما شاء الله تبارك الله ده كل شيء إلهي بقى وحكي استسكلا إلهي بقى عقلي بحي إلهي مسكحة بحي إلهي بقى ورست بحيه حبكوا هو غفل بواحد قصو جنتهاي وحات هذا الحمد لله كل على حال إلهي يو أديقا إيه كسير قفك هدا أركتينو كأكتفسين كافر كده يو حستن يا أخي حستني ماذا وحفي عن ماهن اللهم صل على محمد مركو ولا ليال قلت النبي صلى الله عليه وسلم قصة لنا إلهي سبحانه وتعالى حق هاينا تسجودها صومالي جارهان محل ده إيشك دتك أو إسلامك وحنا مركب ما أنت إنا تسهوشي ما نتلو أسوبني سأسوبيه وحكب بدرن قف كستعلد أولي هاي بكعون السا ولا ليالو هدا علوشنا بكتيريا كتيرته هدو علوشنا بارسيت كتير أما بهل كتيره هادي ماركت إيشك أنت أصلقاها يوقفكم مركز أنت كعوضو مركو انتظرونه ودريمو علوشي سهفت إنه يهي believe me والله العظيم إنا لبيني لي شيء even وحيالها إلهي سبحانه وتعالى النبعاد وينسيه علوش هذا وحيالها شداد دينتي وقرافات حتى ضدك عنه لأننا أنت يكان ما تسيد وقتها ما أوقان كرتان مركو وحا إني شيء يا ولا ليالو believe إلهي سبحانه وتعالى وحينسيه صدح شيء بان ميشان كو هيا والين دانانتاس وكابشكاس وابركان جرينكا iyo coconut oil ama qumbo biyaha saa u taqaanaan qumbaha Soomaaliya waa ka baxaa Soomaaliya waxa kaliya laga heli karin waa abulka greenka laakiin inta kale hadaa la geyn waa hadda adduunka hor u maray kama helaysan laakiin dadka Soomaaliya jooga inii sheegaya labadaas waad haysataan kaabishkaasna waad haysataan kaabish soo ma taqaanaa waa haysataan okay laba u kala dhigayaa walaalayaal qofka kaliyihiisa borobaleenka la nool fiidiyowgii hore sidii aan u suubiyay baad follow garaynaysaa feeresta saddexda koorasoo kuugu horeeya baad follow garaynaysaa kabacdi waxaad isticmaalaysaa itamiskan dawadan baad ku xijinaysaa waa daw wallahi waa daw waa inii sheegaya marka bal ila socda saa wax u suubiya insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ku faa'iidi doontaan liinadaantu waa jarjarayaa ayadoo qolofteeda qabtay skinka kama fiiqasa dawada dhan meesha ku jirta waa qolofta ama skin qof bas uu yaqaano waa wax kasto caafimaad la kulli shay waxay ku jiraan waa skin ama vitamin liinadaanta marka aniga hadda waxaan isticmaalayaa xabad iyo bar baa isticmaalaya xabad iyo bar kiliyahaaga qofka kiliyihiisa barbaranka haysta haddii qof maaragtay isha kilidiisa cilad lagu sheegay ama cudur lagu sheegay walaal waxaa suubinaysaa laba xabaad isticmaalaysaa haddii laakiin normally aad xanuun caadiya ka dareentida oo markasta xanuun yar ka dareentida walaal hal xabaad isticmaalaysaa
sida ay u tahay baad u istixsaan u suubinayana waa u suubinaysaa insha allah. اللهم صل على محمد. إلهي سبحانه وتعالى وحكست وحجليي وعافيماتك أوجادا إسكما يمادو وعنا وعبا واسيحنا عافيماتكم يمادو وحد وقفكم وأنا إكسسايس وبس وأنا أردد وحاجة إكسسايس يلا سوبيا الله وتلقى حمناس على شيء نكتره مسكحيا قفك أوجادا وحنا صداقفك هدون السعر هدون أنت بدرنا. وعربا مرتين عيني شيء كابشكا انت اصبت سوق هذا السنة كما بدنا انت اسمع ركتين بقى سوق هذا السنة ولي بعدين كوانا قفي عندنا اورجانيك بادتك السومالي انت سوق هذا السنة هذا كم هذا قناة يعني انت مركا ولا سوق هذيت او كابشكا انت سوق هذا تدوا لبا على انت صار حبي انا كل جوي انت سوق هذا السنة وترتر السنة ويريرين السنة وترترسا. اوكي marka waxaan rabaa inaan tuso labada waa ugu dambaysiinay because qof walba conditionkiisa walaal adiga hadda qof kaliya laga hayatay ama caloosha kaligeed hevet ku haysato waxa subinaysaa abulkana soo qaaday hadda abulka heli karin intaana kugu filan ma fahamtid hadda asokor qabtid oo minis malabka kala aad isticmaali kari sideeda ku cabisaa waa ku cabisaa coconut hadaan heli karin biyo cad baa ku darsanaysaa ma fahanteen. okay waan jarjaray aniga waxaan ku diraan tusaa ani malab baan ku darayaa oo malabka waxaan ku darsanayaa anaa habeena cab alxamdulillah cudur iyo sokor midna lama nool inta la nool ilaahay ka dulqaado marka qaada malab waa ku darsan kartaa if you don't want it kuma darsanaysid haddaad rabin kuma darsanaysid. okay halkan waxaa ku ridnay intaas ani marka qaado malaba waan ku darayaa insha allah inkastoo malabka wadankan ay ku leeyihiin waa baalki laakiin waa insha allah adinku wadamadaas dadka Soomaaliya jooga malab waxaa heli kartaan original qaado malab oo aan buuxin baa ku darsanaysaa hadduu dhanaanka ku dhibayo aad gaas qabtid oo kaleeto waa reer master gaas dadka gaaska haysta يا علوش هذا كوجاد أنا ملبكو علوش بكتيريا اللي لفتي جسد هو كده بيجي صلى الله عليه وسلم حكى سجناتي حاف بكيري صدق قاعدة وبيير أما عانية في بوق السوق أنت عيوقفكو عب علوش هذي لقاها يو السنة ما قرأتين أوكي كم حاجة يقدك ولا لي المركة وهذا بقى إن شاء الله هكذا أنت الحاجة يسقون إيشي أوكي هكذا وحنا قدر يا كوكونات كي ملك كوكونات ملك أما بيا كهذا كرتيد لبعض واسكمت هذا هنا أصلا بروحين كفتان قدر يا alright إلهي وربي وقف كستو إسلامه أما قف كستو مؤمنة إلهي كو عافي ربي ورحمانه قف كستو اللي بعتها يسوء إلهي وقدر قاد ما يتشدان كاميرا دو حير إني وتشد السيدية ساسا وشي ذا وقت أنا ما أتقاضنا ما كان شغل آدم كتاب يكتب عندما أتقاضنا اللهم صل على محمد. قف يا قف وين بقى واستعمال كرا كما حرنا إيش وحي كير وحي كوين عند 5 ولا سينكرا 5 سنة وحي كوين ولا سينكرا وحامرك أنا تصيّا how I make this like a choose أما choose وقبل كرتان ولا لي أروح أسوي السان وأمير السان ما فهمت كان أقول شو بس أيام لم بكوس ضد قارمتش على بيتس بالها واحد هرق ما هدوار هدا أديك عنو كرتني وافع بس لكن for example وحين تصيّ هدا حتى عروسي نسال ما فهمتين سأنا أمي رسا سأصبر أمي رسا وعن ربعنا إن تصصين قطع مكاسة أمي رتد ما تشجعني believe me waa isbedela xataa wajigaaga isbedelay dadka dhan waxay ku dhahan subxaan allah
وجهي waxay iga hadlay COVID-19 injection kiba jirka dhan iga hadlay special wajiga alxamdulillah rabbil alamin so usually every morning alaabtan saa u isticmaalay wallahi wajigay wixii waa iga soo bacayaan alxamdulillah rabbil ilaahay baa mahad iska u sugnaatay marka walaalayaal waxaan wakaas ma u jeedaan bitiskaas ka haray qofkii rabana uu ku cabi karaa usually ani waa isaga cabaa laakiin waxa inuu tusaa haduu qofku rabo asagu bitiska jeclayn ama waxa ku harara jeclaa walaalayaal waa kuwan dawadi wataas ma sha Allah tabarakallah okay alaabtan marka waxay niisha saas u ekaanaysaa waa liindanaanti waa coconut milk ama coconut water ka u taqaana caanaha qumbaha ama biyaha saa u taqaanaan waa liin iyo abulka greenka iyo qaada laba xabo half liina iyo xabad liina xabadan kala jiray xabad buuxdaan ka wada iyo half abula maxaa qaada malaba half oo malaban buuxin baa ku daray walaalayaal wakaas bismillaah okay alaabtan qofka gaaska haysta wuxuu suubinayaa markuu cuntada cunaya ma fahanteen haddii aad gaas qabinna subaxi waagu markuu bariyo qaxwadaadii saddex baa timirta aad cunaysid bal walaalayaal macaanayaal aad cabisaan marka cabti believe me the first time waxaad dareemaysaa caloosha qof baa caloosha ku socota dadku isku mid qof baa caloosha waxaad dareemaysaa calooshaada waxaa cuntay oo dhan inay hoos u degeen waxaad dareemaysaa caloosha inta ka buuxi jiray habits bay dhahaa gaaladu caloosha qofka halka calool directada kale aniga waa haysan jiray because markaan yaraa cunto badan ma cuni jirin marka caloosha cuntadii way hoos bay u degaysaa ma fahamtay ka bacdi waxa dhici karta qofkaas dadku isku calool ma isla markii inay caloosha ku socoto waxyaalo badan oo healthy waan hayaa dirsh caloosha maaragtay shubasan hayaa mudaawada iyadana sokorta iyo maxaa la dhahaa problemka dhan qofka jirkiisa sokorta poison hadda cunto waxa soo ka safaynaysa waxaan hayaa oo kaleeto insha Allah company-gaas waa dacfuri doonaa soon xogaa waxyaalahaas ee kay maaragtay waxay soo garan kartaan qurbaha la joogo awlaad lagu korinayo qaxwo waxyaalo badan cafe aan ka suubiyay oo la dhaho maxaa la dhahaa khadra Soomaali cafe xataa waan suubiya oo product healthy ah oo maaragtay qofka maaragtay nervous systemka stresska maxaa la dhahaa qofka maxaa la dhahaa ii sheeg sida always la xanuunka oo arthritis-ka haysta qofka markasta stress ku furaya hurdada ku yarto waxyaalahaas oo dhan u fiican ma sha Allah tabarakallah waa tijaabinay dad badan baa maaragtay tijaabiyay oo ku caafimaaday waxyaalo badan saliidihii baan haynaa timaha bixinayay kuwa jirka la marsanayo cayuuna naaska isha u fiicnaa baan haynaa war wax kasta waana la ka helaa ma fahanteen oo my own product ya aniga dadku waxay u dhaqan ma company subis company markaas subis you have to be ready insha Allah awlaadayda ma sugaya inta isukay raacayaan sun waa farxi doontaan Soomaali weyn gabar Soomaaliyeed oo hal abuur la timid gabar kastoo Soomaaliya wax la timid wallahi waa u duceeya waxa ugu duceeya at least she try waxa qofka bini aadanka uu sugi ma sha Allah tabarakallah minna waa ka cudu daaranaya ma sha Allah dhahaya qofka markuu wax suubiyo gabdhaha Soomaaliya waxaan meelka walaalayaal wax kasta suubinaysan kiimikada ka ilaaliyo xoolihiina xalaal ha noqdeen qof kastoo Soomaaliya oo wax product suubinaya wax qabrigaaga maal adduunyo waa la helaa laakiin waxaan anigu inagu advice gareynaya anigu lacagaan diiday waxyaalo badan company-yaal ba inta yimid baa li idea-daada kaliya naga gado riisika u diiday waxay tahay wax aniga idea ani iga soo macani soo barto professional school u tagay in qof intuu cuno ama qof magacaygii loo isticmaalo in dhibaato ka gaarto waxa ay ani markaan reebi noqdo my product ana suubsanaya diyaar u noqonaya insha Allah markaas baan adinka hadaa shay rabtaan hadaa wax rabtaan in gelinaya marka walaalayaal qofku dad badan waxa leeyahay waxa ma suubisid fadhiga ka kaca ilaahay knowledge ku si war knowledge ka you have to be ready ilaahay knowledge ku si cilmiyada marka la suubinayo oo wax la suubinayo waa laga baaraan dagaa waxa baaritaamo badan baa la suubiyaa wax badan bas ani waxaan rabaa business ma rabo waxaan rabaa wax aniga qabrigayga hadaa dhinto ummadda islaamka ummadda Soomaalida ii soo duceysto ah that's my friends baan u sheegaya العلم نفسه waxa sugaya waxa aniga biri ka maalin anoo qabri ku jira benefit ka helo reedi u ahay qofkii productiga isticmaala u dhowriya fikrada Allah qadro ilaahay jannada ha ka waraabiyo walaalayaal marka adduunka kaliya looma shaqaysto this dunya waa laga tagayaa aakhira aan u shaqaysano qabrigana u shaqaysano ummadana ilaahay subhanahu wa ta'ala ha qof kasto ku dhibaatay iska cafi ilaahay hortiisa ka siinaya ما فهمتي قفك ogaada wax cafiya ilaahay waxyaalo badan oo special u siiya ilaahay riyadiisu run uga dhigaa wuxuu ku riyoodo khayr buuna ku riyoodaa
ilaahay wuxuu siiyaa cilmi aan dadka kala haysan ilaahay wuxuu siiyaa dareen fiilin aan dadka kala haysan baa ilaahay siiya oo wax ku dareemo wax ku arko ma fahanteen ummadda markaa cafisid oo tira ilaahay rabbi raxmaanow adoomadaada waa kuu cafiya adaan ku wakiishay marka walaalayaal hadalkay aan ugu badin fiidiyowga ka faa'iideysta wax badan baad ka helaysaan insha allahna waxaan suubin doonaa haddii ilaahna routine maalin kasta fiideo waan soo gelin doonaa waxa waaye cuntooyinka healthiga horeyna waa u geliyay haddana waa usoo gelin doonaa gaab baa iga galay lockdownkii corona iyo problemkii maadaama 2 jeer baa covid-19 igu dhacay alxamdulilah marka the one day aan ka hadli doono maxaan ka baranay covid-19kii maasha allah tabaaraka fiidiyowgii aan duubay qof basi buu uga farciliyay covid-19kii ilaahay ummad badan buu ku badbaadiyay ku caafiyay dad badan oo igu yiri baa jira ilaahay maartay cilmigaada ku ii duceeyay dad badan oo aganasta igu noqdayo tooniya basal iyo waxba isku dardartay qofka markuu qofka rabo inuu qalbiga ka dilo qofka markuu knowledge-kiisa xaasid naas baa la dhahaa walaalayaal tan waxaas waa ka weyntahay hooyadeedii aabaheedii dhalay baa waxaas kala dardaarmay inaan qof weligaa qalbigaa wuxuu ku yiri aad gelin marka waxaan ii sheegayaa ummadda Soomaaliyeed anigu qof kasto i dulmiye waa cafiyay qof kasto ani waxa iga sheegay cafis baa iga ilaahay baa ceebsanay iga dhiga alxamdulillah rabbil caalamiin marka waxaan ii sheegayaa الحاسد النفسي قفك حاسد كنفتي حاسد كياي قد مركو حاني لا ولا وعين السلامي إلهي سبحانه وتعالى عافي ماذا نقصي ترى قرايه في ريق تستقلاب تشارك كنا كل فتا يوتيوب كان الصومالي بوتاجي هدي يوتيوب كلا كعوة كسر بحنا وحنبلني نيجا قاريا تدك الصوماليات أو تبع السن قبل كستو أي شوجا إنا وجرجار تاسع أي شيء جيا أنيجا my aim عم بإمبيشن كيجا Soomaaliga kalmadaas ma ku aqaan runtii waa inii sheegay raaliga hada waxaan u malaynayaa mas fikradeyda inay tahay aan ku xisaabtami doono inay dadkayga aan caawiyo qof kasto tabaalaysan oo Soomaaliya oo dhibaataysan YouTube-ka wixii ka soo baxay insha Allah marka walaalahay waa in salaamaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala khaatumada ha inagu beego qof kasto dhibaataysan Ilaahay dhibka dulqaata kii cudur haya kii gaajaysa kii walwal kala haya kii culays hayo kii meel ka xirxiranta Ilaahay ka furfuro xarga ma fahanteen كل شيء اسكو دعينا ودن كاننا أمني إيه نبض إيه علمي إيه صومالي وعالم كنيسة وببنايو ودتكو قعمها سيستان با إلهي وقبر يا مركز تشودا أدين كنا الدعاء كو كالمية إن شاء الله مدح داعنا ما عمل إسوافق سن دين تانية علماء إنه إسوافق سن با إلهي كبرنا تشوشك يا قبيالة يا عذر يا رير هبلك إلهي هنقصار ورا الله إنا مدايو بدنما إنا الدغدة قرنما إنا الدغدة قف قبري وراعي ماله هويداكم راعي عنقاكم لكن waxa ku raacay wanaaga ka shaqaysid markasta wanaaga ka shaqeeya isku duubnaanta ka shaqeeya qof baa wuxuu ku leeyahay war hebel maxaa war waa la hadalku waa fureeyo qofka muuminkaana waxa loo baahan yahay war waxa xun dhowr waxa waa xun yihiin ka jooga walaalka adduunna u hiil aakhirana u hiil haduu politician yahayna u hiilo tiraawneeyo khalad baa ku jirta khaladka ka bax haduu yahay maxaa la qof shacab oo khalad ku jiro shacab baa ku jira khalad baa ku jirta marka walaalayaal abni iyo naxariis ilaahay waxaan ka baryaa dalkeena abni maamulada daacada dawladeena oo daacada culimadeena iswaafaqsan baarlamankeena iswaafaq shacabkeena subaa ilaahay ka bariyay marka adinkuna ku kaalmeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaali weynay waa in jeclahay ilaahay in jeclaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu